بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal meel kastaa joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenii qisas وعبرة ama qisooyin iyo ku cibro qaadasho. waxaynu insha allahu tacaala soo qaadan doonaa maanta qisooyinka wanaagsan ama axsan alqisaska, sheekooyinka wanaagsan mid ka mid ah oo ah siiradii nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. qisadaasi waxay ku saabsiisan tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu fariintiisa gaadhsiiyey dadkii ka agdhowaaya carbeed. wuxuu doonay markan inuu fariinta gaadhsiiyo dadka kale aan carabta ahayn ama cajamta ah si uu u iclaamiyo ama uu u dabaqo aayadda qur'aanka ah ee uu rabbigeena ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. waxaan kuu soo dirnay oo keliya rasuulka ilaahayow inaad tahay naxariistii iyo raxmaddii caalamiinta. marka nebigeennu ma aha rasuulkii carabta oo keliya, mana aha rasuulkii ummaddii xilligaa noolayd, ee waxa weeye rasuul caalamiinta oo dhan loo soo diray. marka si uu marka arrintaa u iclaamiyo fariintana u gaadhsiiyo dadkii kale aan carabta ahayn, ayaa wuxuu diray qoraallo fara badan. wuxuu warqada u qoray boqoradii wakhtigaa ka agdhowaad dowladdii islaamka ay ka mid tahay dowladdii farisiyiinta, roomaankii, masaaridii, kuwii kale etoobiyaanka ahaa ama dowladdii xabashida. kuwaasoo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam warqad buu u diray. marka waraaqaha uu diraya waxaa ka mid ahaa markuu warqadii uu u diray boqorkii kisre la odhan jiray ee dowladdii farisiyiinta madaxda u ahaa. warqad buu qoray markaa nebigu leeyahay min muxamedin rasuulillaah, ka socota nebi moxamed oo ah rasuulkii ilaahay ama fariinsidihii fariinta ka siday allah, kuna socota casiimi kisra, boqorkii ama ninkii madaxda u ahaa farisiyiinta. warqadan wuxuu u dhibay markaa wuxuu ku xusay nebigu inay diinta soo galaan oo ay islaamaan ilaahay kelinimo u rumeeyaan. warqadana waxaa qaaday saxaabiga cabdillahi ibni xudaafa, wuxuuna u tegay boqorkii kisra oo la magac baxay markan shaahanshaah, yacni boqorkii boqorada. waxuu ka talinaya markaa dowladdii dunidaba ugu weyneed wey, oo nin kibir badan uu ku jiro wey. marka warqadii markii loo dhiibaba markuu arkay inay ka bilaabmayso min muxamed rasuulillaah, ka timi moxamed oo ahaa fariinsidihii fariinta ka siday allah subxaanahu watacaala, ayuu xanaaqay oo cadhooday oo dabadeedna intuu giir iska kiciyaybu warqadii jeexjeexay oo uu yidhi addoon ka mida addoommadayda sidee buu magaciisa ugu hor bilaaba oo aniga igaga hor bilaaba. warqadiiba waa jeexjeexay. subxaan allah, kibirkii iyo santaankii ku jiray darteed. nebiga markii loo sheegana waa kii lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mazaqa allahu mulka, alla ha googooyo boqortooyadiisa. dabcanna ilaahay dacwaddii iyo habaarka u habaaray ninka boqorka ilaahay waaba aqbalayo. dowladdii farisiyiinta dib oo u dambaysa taariikhda laguma arkin. dowlad jirtay in ka badan 5,000 oo sannadood ayaa hal mar dunida laga waayay. subxaan allah, habaarkii rasuulka ilaahay baa ku dhacay mazaqa allahu mulka, alla ha googooyo boqortooyadiisa. ninkan boqorka isla weyni markii uu arkay ciddan warqadda usoo dirtay ayaa nin madaxa u ahaa yaman oo ka amar qaadan jiray dowladda farisiyiinta. dabcan isagu wuxuu ahaa nin farisiya, wuxuuna barasaab u ahaa dowladda farisiyiinta oo yaman buu ka talin jiray. waxaana la odhan jiray ninkan baadaan. ninkii baadaan la odhan jiray buu markaa boqorkii shaahanshaha la baxay, boqorka boqorada kisre ahaa ayaa warqad buu soo diro. wuxuu ku yidhi baadaan, ninkan jasiiradda carbeed ka soo baxay meelaha saxaraha ah, laba nino xoog weyn u dir. labada nina xoogga waaweyn ha soo qabtaan oo dabadeedna ha ii keenaan oo hortayda ha keenaan. labada nin uu diray waxay ahaayeen mid waxaa la odhan jiray baabaweyhi, qahramaan baabaweyhi, ka kalena kharkhas baa la odhan jiray. labada nin buu ninkii baadaan la odhan jiray yeman u fadhiyi jiray farisiyiinta uu soo diray. nimankii waxay yimaadeen daa'if
kadibna waxay uga soo safreen magaaladii Taif bay ka yimaadeen oo waxay yimaadeen magaaladii Madiina ee rasuulku uu joogay calayhi salaatu wassalaam labadii nin waxay dhaheen waxaa noo kaa soo diray boqorkii boqorada ee shaahanshaah wuxuuna doonayaa inaad hortiisa tagtid haddii aad diididna waa lagula dagaalamayaa bay dhaheen nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam bal berri toolaygu soo noqdo berridii markay ku soo noqdeen ay soo kalaheen ayuu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam ninkii boqorka ahaa ee idin soo diray xalay tole rabbigayba ka takhallusa waa dhintayba yaa allah ma boqorkii shaahanshaah waa ilaah baa dilo dhimay kaasi waa baktiyey laa ilaaha ila allah oo waxaa dilay buu yidhi nebigu wiilkiisii baa ku kacay oo kacdoon ku sameeyo dilo ka takhallusay labadii nin afkala qaad bay ku noqoto hareerahay eegeen markaasay dhaheen sidee buu warbaahintii u soo gaadhaysa haddayba dhacday sababta waqtiga warbaahintan casriga maysan jirin iyo isgaadhsiintan iyo telefoon iyo internet iyo waxaasi hadalkeeda daa sidee buu warkuu kusoo gaadhay marka waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartay warkan hadduu run uu noqdo waxa weeye waa rasuul ka yimi xagga ilaahay marka nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku yihi labadii nin baadaankan yaman jooga ku noqda waxaad ku tidhahdaan boqorkaagii la dil aniguna rasuulka ilaahay baan ahay haddaad i rumaysid meesha aad haysatid mas-uul baad iiga noqonaysaa subxaan allah labadii nin baa la diray markii labadii nin la diray waxay qabteen dhulkii yaman baadaankiiba u tageen baadaanba waxay ku dhaheen war ninkii moxamed loo odhan jiray saxarahaas madiina iyo aaggaa joogi jiray jasiiradda carbeed ee aada noo dirtay wuxuu yidhi boqorkii shaahanshaha ahaa iyo kisraba dhimay oo wiilkiisaa dilayba subxaan allah haddaad meesha joogaysid haddaad isoo islaamtid meeshan aad haysatid waxaad iiga noqonaysaaba mas-uul dabcan in yar markii la joogayba cid baa timi ordaysa oo tilmaamaysa warqad sida wiilkii dilay aabihii oo la dhaho shiiraweyhi ayaa warqad buu soo qoro wuxuu yidhi aabbahay waan ka takhallusay oo meeshaan imika la wareegay arrintii aabbahay warqadii uu soo qoray uu yidhi ninkii hala soo xidha labada ninna bal ninkaana arrintiisa mar kaleynu ka wada hadlaynaa subxaan allah waxaaba run noqotay wixii uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wassalaam ninkii baadaan wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartee ninkani waxa weeye waa rasuulkii ilaahay waabuu islaamayba diintii xaq ahaydna waa soo galayba wuxuuna nebiga u noqday calayhi salaatu wassalaam mas-uul uga noqday dhulka yamanba subxaan allah waa mucjizooyinkii nebigeena moxamed calayhi salaatu wassalaam dabcan sababta ninkan nashiira weyhi lo odhan jiray oo aabihii u dilayna waxay ahayd kacdoon ka dhashay markii ay dowladda farisiyiintu ay ku jabtay dagaallo ay kala soo horjeeday dowladda romaanka oo hadda ka hor farisiyiintu iyagoo dhul ballaadhsi doonaya ayaa waxay qabsadeen wadamo ama dhulal badan oo dowladda romaanku ay haysatay oo ay ka mid ahayd suuriya yaman urdun cumaan dhulkaasoo dhan oo romaanku ay ka tirin jireen markii hore ayay dowladda farisiyiintu ay qabsatay markay qabsatayna ilaahay baa qur-aan ka soo dejiyeyba oo lahaa alif laamiim ghulibat iruum reer ruum ama romaankii waa la jabiyey fii adna alardi meesha dhul ugu hooseysa lagu jabiyey waxaa lagu tilmaamay webiga urdun halkaasaa lagu jabiyey wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun jabintaa la jabiyey ka gadaal ama kadib dib ayay usoo noqonayaan farisiyiinta way jabin doonaan subxaan allah aayaadkan qur-aanka ah oo 9 sano ka hor sooba degay oo abubakar cali radiallahu canhu waa kii sharadka la geliyay nimanka reer maka ee lahaa dowladda farisiyiinta waa la jabinaya dabadeedna waxaa run noqotay siduu allah subxaanahu watacaala uu tilmaamayo uu leeyahay romaanku wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun jebintaa la jebiyey kadib dib bay usoo noqon doonaanoo waa la jebinayaa dowladda farisiyiinta dib bay markaasi soo urursadeen hiraqalkoodii iyo nimankii madaxda u ahaa waxayna qabsadeen meelihii laga wada qabsaday dowladdii farisiyiintana tamar darri baa ku dhacday waxaana bilaabantay markaa kacdoon ka dhan ah odaygii shaahanshaha la baxay kisre lo odhan jiray waxaana dilay wiilkiisii halkaasuu kaga takhallusay arrintaasina waxay ka mid ahayd mucjizooyinkii nebiga waana min axsani alqisas sheekooyinka iyo qisooyinka ugu wanaagsan ee siirada nebigeena calayhi salaatu wasalaam ay xambaarsan tahay intaasna insha allahu tacaala sheekadan ama qisada tan aynu kusoo gabagabaynaynaa wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu